الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الكيم بكسو دواء سلسلة الطحناء التاريخ عياريانكا isagu wuxuu ka ciyaari jiray booska khadka dhexe laakiin markii uu daawaday Ronaldo Nazario koobka adduunka ee 2002 waxa uu wareegay booska weerarka. weeraryahanka kooxda Manchester City ee xulka qaranka Brazil Gabriel Jesus ayaan ku soo qaadan doonaa. magaciisa dhameystiran waa Gabriel Fernando de Jesus. waxa uu dhashay 3 April 1997. waxa uu ku dhashay xaafad kamid ah magaalada São Paulo ee wadanka Brazil. hooyadii waxaa lagu magacaabaa Vera Luzia halka aabihiina lagu magacaabo Dennis Jesus. waxa uu ahaa kii ugu yaraa qoyskooda waxaana ka weynaa 3 wiil iyo 3 gabdhood. waxa uu ka dhashay qoys sabool aan waxba haysan. wuxuu ku soo koray xaafadda Jardim Bari ee waqooyiga São Paulo. Jesus isaga oo jira da'da 5 sano waxa uu kubadda ka bilaabay laamiyada isagoo ku koray gidaarada. waxa uu ku noolaa nolol aad u adag oo faqri ah. Gabriel Jesus waxa uu ka dheeli jiray booska khadka dhexe laakiin markii uu daawaday Ronaldo Nazario koobka adduunka ee 2002 waxa uu wareegay booska weerarka. waxa uu ku dayan jiray taageero buuxda u ahaa laacibiinta Ronaldo Nazario iyo Pele. waxa uu ahaa mid aan fursad u haysan inuu soo bandhigo hibadiisa kubadda cagta waayo ma jirto koox og heerka uu taagan yahay. 2014 waxa uu ahaa ranjiile isagoo ka shaqeysta naqshadeynta gidaarada. kowda bisha koowaad 2015 waxaa bilaabmay treenkiisa kubadda cagta markii looga yeeray akademiyada kooxda Palmeiras. xilciyaareedkii 2015-2016 waxaa looga wacay kooxda waaweynka ee Palmeiras waxaana qaatay waqti qurux badan isagoo shabaqa gaadhay 28 jeer. kowda bisha sagaalaad 2016 waxaa markii ugu horeysay looga yeeray xulka qarankiisa Brazil. kulankii ugu horeeyay ee u saftay waxa uu dhaliyay 2 gool. kowda bisha koowaad 2017 waxaa 32 milyan kula wareegtay kooxda Karamisa garoonka Etihad Stadium ee Manchester City. kulankiisii ugu horeysay isaga xiran maaliyadda kooxda Manchester City waxa uu ka hortagay kooxda Tottenham Hotspur isagoo daqiiqadii 82 lagu bedelay laacibka Raheem Sterling. kulankiisii ugu dambeeyay oo uu ciyaaro kooxda waxa uu ka hortagay kooxda Burnley 5 bisha 12 2019 waxa uu shabaqa soo taabtay 2 jeer. aynu wax ka taaban noloshiisa gaarka ah. wuxuu saaxiib dhow la yahay weeraryahanka kooxda PSG Neymar Jr. waxayna waqti ku wada qaataan xulka qaranka Brazil. noloshiisa waxa ilaa haatan maamusha hooyadii sida mushaarkiisa waxayna u diiday inuu isticmaalo qamriga iyo sigaarka iyo wixii la mid ah. sidoo kale waxay ka mamnuucday girlfriend waxayna sheegtay inay u diidan tahay inuu gabadh uur u yeelo. si kastay tahayba Gabriel waa uu ku qanacsan yahay xakameynta hooyadii waxaana u hayaa ixtiraam. daawadayaal waxaynu halkaa ku soo afmeeri doonaa silsiladii taxanaha ee taariikhda ciyaaryahanka halqadii 3aad aynu ku soo qaadanay dhaliyaha kooxda Manchester City ee xulka qaranka Brazil ee Gabriel Jesus.